What is your goal as a player? My goal as a player to reach professional level. xawaarihiisa sarreeya iyo caawintiisa cajiibka ayuu ku soo jiitay qof kastoo kubadda cagta daawada. waxa uu burburiyey kooxda Chelsea, waxa uu reer la milaawaana mariyey kooxda Barcelona. waxa uu ka mid noqday daafacyada ugu wanaagsan qaaradda Yurub. waa 19 jil gilgilay qaaradda Yurub. waxa uu ka mid noqday dooqa koowaad ee daawadayaasha kubadda cagta. ninkaas aan ka waramayno waa Alphonso Davies. waa wiil ku soo koray nolol adag, mana uusan aqoon waxaan ka ahayn faqriga iyo gaajada daran qoyskiisa haysatay. muuqaalkeenna maanta waxaan uga hadli doonnaa sheekada la yaabka badan ee Alphonso Davies. ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. inta aan muuqaalka gudagelin, haddii aadan weli ka mid ahayn bahaweenta Ogaalo, waxaan si sharaf leh kaaga codsanaya inaad ka mid noqoto aad ku soo biirto kanaalka oo aad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalo walba aan soo gelino. mahadsanid. Alphonso Davies qisadiisu waxay bilaabatay inta uusan dhalan ka hor. waalidkiisu waxay dhexda kaga jireen dagaal sokeeye oo ka socday waddankooda Liberia. aabihiis oo ka hadlaya arrinkaas waxa uu yidhi, haddii aad rabto inaad ku noolaadid waddanka Liberia waa inaad dagaalantaa. haddii aadan dagaalamin waxaad weynaysaa noloshaada. Alphonso Davies waxa uu ku dhashay kaam ku yaala magaalada Burbaan ee dalka Ghana, taariikhdu markay ahayd 2 Novembar sannadii 2000. Alphonso waalidkiisu waxay ka soo carareen dagaalada ka socday waddankooda Liberia, waxayna yimaadeen waddanka Ghana ayagoo degay kaam ku yaala waddankaas. kaamkaas oo ku dhashay Alphonso Davies. Alphonso waxa uu 5 sano ku noolaa guri ka samaysan alwaax iyo kartoono la isu geeyey. noloshiisuna waxay ahayd mid aanan u dhammaystirnayn wax kasta, dhanka cunada iyo weliba dhanka labiska iyo waxbarashada. markii uu Alphonso gaaray da'da 5 sano, waalidkiisu waxay fursad u heleen inay u soo wareegaan waddanka Canada si qaxootinimo ah. markay yimaadeen waddanka Canada waxay degeen magaalada Edmonton. waxa uuna Davies halkaasi ka bilaabay safarkiisa kubadda cagta. riyadiisu ugu weynna waxay ahayd inuu kubadda cagta ku saacido qoyskiisa si ay ugu noolaadaan nolol heer sare ah. Alphonso Davies waxa uu ka mid noqday midka ugu wanaagsan ardada iskuulka kadib markii la qabtay tartan loogu magac daray 40. dadaalkiisa joogtada ah kadib waxa uu kasbaday inuu ka mid noqdo naadi ka dhisan magaaladiisa oo lagu magacaabo Edmond Strikers. waxa uuna naadigaasi ku sugnaa muddo 8 xilli ciyaareed ah. 8 sano oo ku sugnaa kooxdiisa waxa uu soo jiitay indhaha kooxda Vancouver Whitecaps oo ka dhisan dalka Canada. waxa uuna ku biiray naadiga heerka labaad ee kooxda ama waxa loo yaqaano da'yarta. Alphonso waxa uu ugu ciyaarayay naadiga Vancouver Whitecaps garabka midig ee weerarka. dadaal dheer uu sameeyey kadib waxa uu soo dallacay naadiga koowaad. Alphonso waxa uu ka soo muuqday horyaalka Mareykanka oo kooxdaasi ay ciyaarto. sanadii 2018 waxa uu ku guuleystay goolka ugu fiican ee sanadka. sidoo kale waxa uu ku guuleystay xiddiga ugu fiican kooxdiisa iyo waddankiisa Canada. bishii January 2019 Alphonso waxa la soo wareegtay kooxda Bayern Munich. markii uu ku biiray kooxda Bayern, Alphonso waxa uu fursad u helay inuu ka mid noqdo kooxda koowaad. waxa uu ugu ciyaarayay dambeedka dambe ee daafaca. waxa uu noqday booskiisii ugu fiicnaa ee hibadiisa. isla sanadkaas Davies waxa uu helay inuu ka mid noqdo xulka qaranka Canada. Alphonso waxa uu ka mid noqday mid ka mid ah daafacyada dambeedka ugu wanaagsan adduunka uguna qaalisan. cilmi baaris ay samaysay jariiradda ka faalood arrimaha isboortiska ee CIS, Alphonso waxa uu kaalinta 9aad ka soo galay laacibka ugu qaalisan adduunka. marka la eego daafacyada ka ciyaara dambeedka waxaa keliya ka qaalisan daafac dambeedka midig ee kooxda Liverpool, wiilka lagu magacaabo Trent Alexander-Arnold, kaasoo qiimihiisa lagu sheegay 118 milyan oo euro. iyadoo da'yarka dunida ugu qaalisan uu yahay Kylian Mbappe, kaasoo lagu qiimeeyo adduun lacageedan 250 milyan oo euro. dhanka xiriirkiisa jaceylka haddaynu eegno, Alphonso waxa uu xiriir kala dhexeeyaa gabadha u dhalatay waddanka Canada ee lagu magacaabo Georgia Hotma. sidoo kale iyaduna waa ciyaaryahanad ciyaarta kubadda cagta, da'deeduna waa 19 jir, waxayna u ciyaartaa naadiga gabdhaha ee kooxda PSG. waxayna sidoo kale daafac ugu ciyaartaa xulka qaranka Canada. waxaa xusid mudan in Alphonso Davies dhowr jeer loo ganaaxay daahid uu ka soo daahay tababarka kooxda Bayern isagoo waqti la qaadanaya saaxiibtiisa. Alphonso Davies waxa uu xirtaa nambarka 19aad. haddaba muxuu ku doortay lambarkaas? markii Alphonso Davies ku soo biiray kooxda Bayern waxaa loo soo bandhigay 2 nambar oo kala
14 iyo 19. waxa uuna doorbiday inuu qaato lambarka 19aad. markii wax laga weydiiyey sababta uu u doortay nambarkaas waxa uu ku jawaabay, nambarka 19aad waxaan ku doortay waxaan Bayer ku soo biiray sanadka 2019. sidoo kale waa sanadka aan jirsaday da'da 19, waana xilliga ay riyadaydii noqotay mid ifaysa. Alfonso Davies waxa uu tusaale u yahay qof kasta oo raba inuu xaqiijiyo hadafkiisa, weliba waa tusaalaha ugu weyn ee eeganayaan carruurta ku nool qaaradani madow ee Afrika.